waxaad jirtaa sanadkan anu marka horeysa hay'addan u shaqeeya Andreas Lolo Somali Media Entertainment hay'adduna sanadkan waxaan ururinay abaaraha bariga galbeed iyo Somaliland oo dhan dhammaanteed dad abaarihii saameysay waxaad jirtay fanaan ku jiray programka sanadkan la kaxeynayay oo ah Fannaanka Cabdi Hani xaashi Cabdilaahi oo raacayay wafdi noo imani lahaa Andreaska sanadkan oo dawladda ku jirta ninkii Fannaanka waxa dhacday lacag leeydi oo gudoomiyahoodu yiri ninka loo raaxay Axmed Wali Farole oo ahaa gudoomiyaha markaas iyo Xasan Duxul Laab Saalax gudoomiyaha imikana ayaa yiri fanaaniinkeena marka la kaxeeyo lacag hore ayaa la siiyaa advance payment loo advance payment ki 10,000 suru fiisiisi waxna ka xumaaneen sari lacag hore siisi marka lacagtii hore markaan siisinay 20,000 oo uu si daafishan kon fiisari alaabtii soo baxeen alaabaran oo kharashna uu sii widiyay oo iri ECEB sidaan u haysto marka diimatid ay keentid oo ku jirtay saacad dahaba oo ku jirtay gadgetsyaal telefono iPadyaal iyo markii fiisari soo baxay unity isbedelay yiri ma doonayo intaan baxo intaan imaado Andreaska oo hawshan ma doonayo intaan fuliyo markii lacagtan sii siinay waxaan weydiinay ishbuqad noo soo cadaadan lacag ku sino waan problem no wana raacaysaa marka waqad insurance aha soo si waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda faafinta waxaan yahay fanaan qaran dad tahayna waxaan roonay noo soo cadee marka wuxuu noo soo keenay waqad or recommendation letter loo oo ka soo qoray wasiirka wasaaradda faafinta Usman Abdullahi Sahadid oo le fanaanku wuxuu yahay is a member of the national artist group called Xiddiga which is employed by the Ministry of Information of Somaliland bishaaru qaata lacagtan waqadan waxaad waqadii hore lacag loo siiyay oo cadeynte oo qofkaas intii yahay employed waqada lacag ku siiyay wasiirka faafinta qofkii markuu diiday intuu baxo oo hawshii contract ula saxay wasaaradda arrimaha dibadda Andreaska iyo the Art Council England iyo hay'adeena markii aan u tagnay wasiirka wuxuu ku jawaabay ma aha fanaaniinta xiriirkiisa ma aha dad ka shaqeeya wasaaradda faafinta Somaliland Cabdi Hani waa la xiray waxa soo xiray taliyaha dhinaca New Hargeysa police station ku yaala New Hargeysa markuu soo xiray wuxuu yiri waxa jirta arin sidaas oo aad contractkaas saxiixay oo lacag aad sii qaadatay oo investment badan lagu sameeyay arintii waxa tiri ma doonay intaan fuliyo arintii sidaad u fulisid qasab ay ku tahay oo contractkaas saxiixay hadii lacagtii soo celi investmentkii ku baxday la soo siiyay markii la xiray waxa soo dhaxgalay afyeenka madaxtooyada oo la Hussein dhinacna ka tirsan oo Xiddiga oo mas'uul oo maamulka ku jira wuxuu u tiri taliyihii channelka police-ka wuxuu tiri channelka police-ka ana amarka ana dimir qaadaya ana mas'uul qaadaya ana hawshan galaya ana labada dhinac isku keenaya labada dhinac markaan isku keeno ana ka dhexgalaya hawshan maadaama inaan yahay fanaankeedii hay'adana hawshan aan dushooda markaas markii uu damir qaaday intuu labada dhinac isku keenay oo balantu u qaaday channelka police-ka muflin isluna balantii u qaaday istii labaad uu galay weentani 15 uu qaatay oo maxalonaya kharash ku baxay hay'adda tahay hantidii dawladda Andreaska funding siiso waxaan contract aan saxiixnay inta dawladda Andreaska sharciga waxaan ka soo ka codsan lahayn xukuumadda Silayo sharci waa marinay hawshan
oo $40,000 oo investment ay gashay tanina falxumay ku soo noqon doontaa dowladda Somaliland haddii wax laga qaban laba nootayaan la saxnay oo cadayna oo ku qoran 15,000 oo lacag inta la siiyay kharashkii ku baxday hawsha iyo investment yaashii loo sameeyay Ingiriiska ku mani lahaa marka waxaan ka codsan lahaa xukuumadda siraayo intay arintan ay dhexgalaan waxa jirta hawshan loo ogaa maalintii la asaasiyay wasiirka wasaaradda faafinka Dhan aan u tagnay aan qoranay mudane wasiir hawshan ara waqad soo saxay qofkaas waxa tiri waa shaqaale wasaaradda qofka wax ka qabo hadii kale hawshani intan maxkamadda marina weeyaan ceeb ku tahay fanka Cabdi Hani wuxuu noo sameeyay oo hay'adda ku sameeyay anu waxaan nahay dad doonayay wadanka oo muwaadin Somaliland oo doonayay wadanka inta wax noo qabano abaaraha iyo waxaan u ururino marka waxaan ka codsan lahayn xukuumadda intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci ee mariyaan noo taayirano ixtiraamana sharciga oo ixtiraam u hayna weyn iyo maxkamadda waxaan codsan lahayn mar kale intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci ee mariyaan kasta oo ku leh hawshan oo is og cadaaladda ayaana kala saari doontaa maxkamaddana waan geyn doonaa qof kasta ku jira arrintan ee foolxumada ka dhacday oo dad mas'uuliina oo ku jira yihiin